muuqaalkan aad daawanaysaan waa mid ay iska duubeen dhagarqabayaasha Daesh oo xilligaasi ku foogan diyaarinta qarax ay ugu talagaleen in ay ku dhibaateeyaan ciidanka amniga Puntland oo howlgal qorsheysan ugu socda degmada Baledhidin ee gobolka Bari. sida aad arkaysaan hadda waxay isku xirxirayaan qaraxyadii iyagoo isticmaalaya xargaha loogu talagalay deynabooyinka iyo batariyada mootooyinka. ninka isku xirxiraya qaraxa waxaa la dhahaa Agram oo u dhashay dalka Itoobiya gaar ahaan qoomiyadda Oromada. Agram ayaa ku jiray liis ee magacyadooda haysay laanta xogdoonka ciidanka BSF oo lagu raadjoogo. ninka kaamirada ka duubaya waxaa la dhahaa Amir Luqmaan Maxamed Xaaji iyo Maxamed Siraaj Salmaan oo u dhashay dalka Itoobiya. shakhsiyaadkan ayaa ahaa dhammaantood kuwa lagu raadjoogo. waxay hadda ka soo ambabixeen xaruntoodii si ay wadada u geliyaan miinooyinka ay sameeyeen. وهؤلاء الوزراء إن شاء الله حشر إن شاء الله ما تجون إن شاء الله بقواتنا إن شاء الله. كانوا طريق ويناي وحي الشيء إن شاء الله علينا هاي ووزراء مرتدين تاي أتباع ملة الكفر علينا إن شاء الله ما كبت بالي سن مر والبا سو أروسين عداس عينكين سو أروسين إن شاء الله عبواتكين كبت بالي دوتين إن شاء الله بإذن الله الباهي. هذا وحا عيدن هيسين سو أروسين بإذن الله سيدا نفتي كبت باستين بس ما نكب بحي دوتين هذا ما كان إن شاء الله بإذن الله. هكذا سا طريقي ويناي وكان وسبحانه هاي أساسا إيمان هاي إنو أقن دلو سي سعودو بلدين سيمر هاي طريقي ويناي waxa waaye mar walba inay inkaraan isku day jiray dawladda islaamiga amaliyaadkeeda insha Allah waxaa hadda goobta soo gaaray gaadiidka ciidanka difaaca Puntland ee BSF iyaguna waxay isku diyaarinayaan inay qaraxa ku dhibaateeyaan ciidanka. الله صالح عليك السلام ورحمة الله وبركاته. أخي كاميرا عندي انتظر يمرون انتظر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله sida aad arkaysaan qaraxii ayay qarxiyeen waxaana alla mahadiisa in aan ciidanka wax khasaare ah ku gaarin marka laga reebo muraayada gaariga oo jabtay. ciidanka ayaa ku guuleystay inay dilaan labadii nin ee maleegayay dhagarta aysan ka fiirsan halka ay ku dambaynayso. ciidanka difaaca dawladda Puntland ee BSF ayaa mar walba ka feejigan dhagarta sharwadayaasha waxayna u diyaarsan yihiin soo afjaridda ururada argagixisada ee ka jira gudaha Puntland iyo gudaha Soomaaliya. Thank you.